kaasoo ku saabsanaa awal markiisii hore saddex ajente oo kala ahaa amniga abaaraha iyo dhuxusha sidii loo joojin lahaa runtii maalmahan waxaan ku jirnay sidii amniga gobolka Mudug loo sugi lahaa daraagiskana looga aruurin lahaa dadkii khaladaadka la xiri lahaa runtii maalmahan kulankii socday waa ka soo qayb galeen laabaha amniga nooc kasta ay yihiin maamulka degmada odayaashuba waxaa ka soo baxay go'aano aan rabno inaan shaqada amniga ku sugno go'aamadaas oo ah in qof kasta oo dembi leh ee dembilaha ee khalad ka galay deegaanka inaan la iska hayn maxkamad la saaro haddii la waayana waaran loo jiro waxaa noo soo haray dhuxush markii aan aragnay in dhibaatooyin badan oo xaalufa oo deegaanada ka socdo wacyigelin samaynay dhirtii aragnay in si cadownimo ah oo ka baxsan waxyaalaha baahida ah in loo gubayo way maraysa in geed walba la arko hadduu geed ku dhow yahay baasiinta lagu soo la jarayo wasaaradda beecaduna ay ka soo saartay wareegto annagoo tixraacayna wareegtadii uu soo saaray wasiirka beecada ahna senatarka Siciid Siyaad waxaan go'aankii oo dabagalkiisa ka dhignay laga bilaabo 18 ilaa 22 wixii ka dambeeya 22 bisha laabaha amniga waxaan u fasaxnay inay sharcigii wasaaradda soo dejisay ee anfuliyaha u nahay ay raacaan kaasoo ah baabuurka wada dembiga lagu qaadaya maxkamadda la geenaya darawalkana maxkamadda la geenaya dhuxushana waa la wareegay